diyaareen mool kasaan qaxwa snacks wax ka qaadanayna safarteennana markale ka bilaabanaysaa kuxidhnow janalka asxaabay saad ogtihiinba dee safar walba waxay ku bilaabataa gaarigan maanta wada wadno waa Toyota Hilux engine 5 ela saaran waa diesel waa maqlaysaanta injinka xamxamtu ku haya alxamdulilah eebbaayey maxad u sugnaatay markaan meeshii qaxwaha ka soo dhaqaaqnay cagtaan wadada soo saarnay sheeko ayaa meeshaas ka bilownay safartan waxaa igu weheliya aniyo laba nin oo asxaab ah waa yarka geela iskale cali ugaas iyo yaro abtuu iyo sadiiq la dhaho oo labadaba waa reer Nairobi waa ganacsato wadada Thika Road ee A21 ku dhacnay safartan waxaan tagi doonaa ilaa iyo Meru geelu wuxuu dhex joogaa Meru National Park maasha Allah meel aad u qurux badan oo dhulka dalka Kenya abaar badan ka jirta laakiin dhulkan waa dhul iska barwaaqo alxamdulillah National Park ta waa meel la ilaaliyo oo reserve marka iyada barwaaqadeeda waa iska normal geel daaqa iyo lo daaqda iyo adi daaqa kuma badna kullee waa dhul la xifdiyo marka ilaahay ha noo fududeey sidoo kale safarta waxaad ku arki doontaan horaan geel horaan waxaan idin dhahay waxaan qalan doonaa qurbac laakiin way noo suurtageli weydo kaamirada iyo wixii maalinkii naga damay hadda laakiin wan baan qalanaynaa waxaan ka xunahay laakiin inaan hilibkii iyo waxaas aan idin tusi doonin sababtoo ana xogaa inuu emotion ka imaadaan ka cabsanayo idin tusi doonaa warkaadi may waa idin tusaa bis waa dhamaatay raalli ahaada nala dhammaystan waxaan sii mari doonaa sidoo kale magaalada Maua markaan kasii baxnana geelaan toos u aadi doonaa geela wuxuu u jiraa Maua town adii 27 kilomitir camal ha ka fogaanin TV-ga daawo videogan
داوديال waxaan joognaa Sidamol fika salaama alxamdulillah safartiina waa sii socdaa la socda Sidamol xoogaa waa iska yara baashaalnay waxaan galnay Java meesha ku taala qaxway waxaan ka qaadanay supermarket meesha ku yaalo Food Plus ladhaha isagana shopping yaran ka samaysanay xoogaa markaan 20 minutes camal joognay agtaan wadada saarnay waxaan ku jihaysanahay halkaasi Maua Town xoogaa markaan magaalada Nyanyuka ka baxnay isla markiiba buurtii Mount Kenya oo daruur la'aan ah markiiba aan arkay waana kuwana sawiradeedii quruxdeedii lama malayn kara ma sha Allah buurta ugu dheer dalkani Kenya waa meel fiican oo dalxiis loo imaado oo hoteelo badan oo waaweyn leedahay insha Allah videoyal damba ka soo duubayna hoteeladaas iyo dalxiisyo kale marka bal safartaan sii wadan baarihii 12 duhurnimo ayaan waxaan soo galnay magaalada Meru waan garab marin magaalada dhexda kamaana marin halkaas iyo ma waan sii aadnay waa iskuulkii Kenya Methodist hadda waxaan u jeedaan Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawadayaal saaka aroortii Nairobi ka soo baxnay waxaan soo gaarnay magaalada Maua saaka waxaan u soconnaa hilib geel iyo caano iyo ari iyo adduun ka soo naalaan rabnaa waxaan soo istaagnay maqaadahan oo la dhaho Golden Restaurant ku taala Maua waa magaalada qaadka laga dhoofiyo Soomaali badanaa joogta oo qaadka ka dhoofiso ilaa Soomaaliya meel walba u dhoofisa aad baa idin salaamaya duhurnimo wanaagsan maanta waxaan joognaa Maua waa magaalada qaadka laga dhoofiyo waxaan u soconaa xerogeel caano ari iyo caano geel iyo hilib idaad waa soo cunaynaa maanta maqaaxidan aan joognaa Golden Restaurant oo yar Soomaali oo walaalkeena leeyahay marka bariis iyo baasta idin siin rabaa isoo raaca علي يقاس الحاجة ها ديار سوما ديار هي alxamdulillah markaan bariiskii iyo hilibkii isku dilnay oon shaah caano geelna cabnay ayaa abaarihii 4:00 salaadii casar la aadaamay waan masaajid ka soo horjeeda maqaaxidan galnay waan tukanay duhri casarkii aan isku darsanay alxamdulillah agtaan wadada saarnay meeshan ayay shaaka awalda gaariga Cali Ugaas baa noo waday gaariga anigu ii dhiibay halkaas marka sheeka iyo haasaawo iyo hadal ka bilowday rag waa shaah iyo sheeka la dhahay hadda waa rag waa darawal gaari wadis iyo sheeko saan u sheekaysanay ninka Cali Ugaas hayde nin nabadoon oo sheeko badan oo Soomaali iyo dhaqankeeda iyo taariikh iyo geel iyo sheeko saan u wadnay alxamdulillah wadada u soconay markana gaariga steerinka oo u jeedaan saan u bahalkeenaya anaa waxaan iska dhigay wiil yar oo baariyo gaari wadi yaqaan Cali Ugaas wuxuu igu hayo ka cili gaariga wadada bamiska ku daay oo gaari maanyolo diesel 5 el engine saaran yahay kolba saan ula qaada dhacayno u wadnay gadaal waxaa noo fadhiya ninkii Sadiiq ahay isaga kaamirada naga duubaya aad buu mahadsan yahay waxaan sii soconnaba geeliba waxaan tagi doonaa mar dhow marka bal maadaama intii hore videoga soo dhamaysatay daawade ha ka fogaanin haddana
جاي بجاسة انت السمرة يا توس اشترك بقى توس بقى هتجن يا هتجن سيبيا kan xeradii geela nimaanay dee wadda waa iska taqaanaa baadiye wadda raafaan soo marnay gaarigaa meel yar naga yara gale waa kaasaan ka bixinay xeradiian hadda nimaanay هذه waxaan naba nimaanay xeradii geela waxaa ila jooga wiilashaan maajo haye see ku dheh الحمد لله haye cunugan yarka maxaa tiri xaggan bal soo dhow kaale soo dur cunugan waa rajo haa hooyadiis maxaa ku dhacay waa dhimid markaa saan u dhashayba saan markay u dhashayba waa dhintay miya haye markay isaan hadda wax ku siisaan caana kaloo geela lagu koriya haa marka bahashii afka loo gelin miya masaasadaa la siini sidee ku kor haa hadda meeqa bilowdu jiraa marka hadda 2 bilood saan ku jiraa hooyo la'aan ولا هو يلام وارفاده وارفاتي هذا وسماركس يا هاشي دشوا تكتي isaga marka hadda ma qurbaca mise waa nirig ha nirigo waa gabar baari ah Soomaa saa dadku yalla soomarkay ha waa u jeedaa say dadka hoos uga galeysaba waa yabar sorry orale asxaabay xeradii geelan dhex nimaanay geeli wali wuu maqan yahay waa amin 4tii galabnimo 5tii galabnimo oo duhurnimo oo habeennimo adi ilaa hal saac uu geela imaan doona insha Allah hadda waa kaasa baalkaasaas u dagaalama kaamirada dhuunta ka galaya soo maragtid geel dadka carreeyma you can pause the geela waxaan dhisanayna guriga ku seexan lahayn caaw waa kana hawl iyo shaqo waata waa isgeen ma jaay magaalnimadeeda ka war saxaabay alxamdulilah ilaahay waana nabad keenay xeradii geela waa ujeedaa waanagaa guryaheeda diyaarsanayna aan seexanaynay maadaama uu videogan dheeraan doono 2 paataan ka kala dhigaynaa paatkan waa part 1 fadlan part 2na waa kan kaloo soo socda part 2na daawo thank you